بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan qaadanaynaa cashir ku saabsan sidaad u xidhan lahayd shaashada computerkaaga haddii aad meel kaga tagto lacala uuna qofna kaa furan karin kaasoon isticmaali doono desktop log. marka cashirkana maanta waxaan la socodsiinayaa anigoo axmed kacaan cabdiraxmaan. marka cashirkan intaydan galgoor waxaan baranaynaa qaabkaad usoo dejisan lahayd, qaabkaad u install garaysan lahayd iyo qaabkaad u isticmaali lahayd. marka softwarekan isticmaalna waa desktop log. waxaad isticmaalaysaa softwarekan hadda anigu waan soo dejiyey. desktop log waa ka hadda inoo diyaarsan yahay. marka waa desktop log 7.3 waa business edition. marka softwarekan waxaan ku dhufanaynaa halkan, isagoo freena waa la helaa kan inkastuu yahay mid buuxa. marka waxaan ku dhufanaynaa software. marka maadaama ku saweysan yahay winrar ayuu extragarabayaa. marka anu wuxuu leeyahay maadaama systemkaaga mar hore kusii jiray maxaad doonaysaa ma inaad kii hore ka saarto. marka maya baan leeyahay. marka dib furahan ayaad gashanaysaa. furihiina waa kan qaabkan aad u gashan lahayd waxaad samaynaysaa karaga meeshan labadan software ku jira ayaad koobiyeynaysaa. waxaad ku dhex koobiyeynaysaa, waxaad furaysaa program files. marka horeysa sidaad galaysaa, then program file kaad galaysaa. desktop log halka ay ku qoran tahay ayaad ku baasti garaynaysaa. marka wuxuu ku qorayaa replace iyo skip. marka waxaad ku dhufanaysaa replace. marka kaawan faanay ka dhigan tahay. marka softwareki maadaama hadda aan aniga ugu jiro desktop log, marka wuxuu ka kooban yahay saddexdan interface. desktop logku waa log now, configure iyo visual screen. marka waxaad ku dhufanaynaa visual screen. visual screen unlock baan ku dhufanaynaa halkaas. marka ani xarafka igu xidhmo waa k y k. marka unlock displaydan haddaan ku dhufano waxaad doonaysaa alarmida aad doonayso in ay kugu xidhnaato. ka tusaale ahaan waxaan ku qorayaa fadlan ha isku taaban computerkan, ama way qoran tahayba fadlan ha isku taaban computerkan amar la-aan. marka iyadan waxaa jirta banner position. qoraalkan aad ku qortay maadaama desktopka xidhayo uu dadka alarm u jeedinayo wuxuu ka kooban yahay top leftis. laakiin ani choicekayga waxaa rolling waxaa hadda qoraal kor kaga soo bilaamaya ilaa hoos. marka igana korba ku laabanaya. marka kaaban doorto. marka waxaa kaloo ku jirta background picture. backgroundigaad ka bedelaysaa. background media haddaad doon media baad soo gelinaysaa. user marka haddaan tijaabina log. okay bal log baan leenahay. marka waa kan fadlan ha isku taaban computerkan amar la-aan baa soo baxaysa meesha. marka haddii aan ku dhufano softwarekan waxaa kaloo uu muhiim yahay computerkaaga meel yaallo qof hadduu furays dhaho waxaad arkaysaa meel alla meeshuu qofku galas lahaa o dhan. siphontan haddaan ku dhufto wakaas xariiq buu sameynayaa. hadduu hoostan ku dhufays dhaho xariiq buu sameynayaa. mar alla meeshii saa loo taabtoo dhan wuxuu ku sameynayaa xariiq. marka qofkii meel alla meeluhu ataagaraysnaa ama uu galis lahaa ama furays lahaa o dhan baad arkaysaa. marka dhegeystayaal cashirkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed kacaan cabdiraxmaan. intaan kan ku lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.